goobtan maanta aan ku sugannahay waa hoolka General Kaahiye magaalada Muqdisho oo lagu qabanayay doorashada xildhibaanada beelaha Somaliland oo maanta lagu doortay 7 kursi ay ku soo kala baxeen 7 murashax ay ku guuleysteen natiijada hordhaca sidaa daraadeed guddiga doorashada xildhibaanada Somaliland waxa u dhiman 3 kursi oo kaliya haddii Ilaahay raahdo tiradooda guud waxay 46 waxay doorteen 43 kursi ayaa u dhiman alxamdulillah sidoo kale doorashadii dalku meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa magaalada Baraawe waxa lagu doortay 7 xildhibaan iyagana maanta ayaa 7 murashax ayaa ku soo baxay natiijada hordhaca magaalada Dhuusamareeb iyadana 4 murashax ayaa ku guuleysay tartanka doorashada tiradii guud ee dalka waxaanu maanta dhaafnay xaajiskii ama kala badhkii kuraasta la dooranayay oo ahaa 275 waxaanu dhaafnay maanta kala badhkii oo ah 139 kursi oo la doortay guud ahaan inta la doortay maanta waxa weeyaan ilaa maalintii la soo bilaabay 153 kursi meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa doorashadana waa ka sii labalaabayna waxaan u hambalyeeynaa guddiga doorashada xildhibaanada beelaha banaadiriga oo xalay toolo goor dambe saacadihii dambe ku dhawaaqay 5 kursi ee beelaha banaadiriga ku matali doonay xildhibaanada golaha shacabka doorashadoodana waxa la qabanayaa wiiga soo socota haddii Ilaahay raado waan u hambalyeeynaa guddiga doorashada Somaliland iyo guddiga doorashada xildhibaanada banaadiriga oo iyaga jadwalkii loogu tala galay ku soo dhameystiraya wiiga soo socda haddii Ilaahay raado